iyadoo muddooyinkii u dambeeyay magaalada Hargaysa oo caasimada Soomaaliland ay ku soo qulqulayeen fanaaniin ka soo kicitimay wadamo kale Jamhuuriyadda Jabkii iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland waa dad walaalo wada dhashay inaan isku xidhnana waa shaqadayadii waxa habeennimadii xalay toola ahayd loo balansanay fanaanka Cawaale Aadan uu show ku qabto hotel Karoon ee magaalada Hargaysa showgaasi oo qiimaha tigidhka lagu goosanayay uu ahaa $30 showgani ayaa loogu talagalay inay ka soo qayb galaan dumar kaliya haddaba showgani ayaa noqon sidii loogu talagalay sidoo kale kaararkii ma iibsanin tiradii dadka ahayd ee loogu talagalay sidoo kale wararka ayaa waxa intaasi ku darayaan in saacadihii dambe ee xalay toole kaararka lagu galayo showgani oo ahaa $30 firi ahaan loogu bixinayay qaar ka mid ah hoteelada magaalada Hargaysa taasi oo looga gon lahaa in loo buuxiyo hoolka fanaanka showgani ayaa sidoo kale loo balansanaa inay ka soo qayb galaan dumar kaliya sida showyadii hore ee ka qabsoomi jiray hotel Karoon balse showgani saacadihii dambe ee xalay toole waxa loo fududeeyay inay soo galaan rag kuwaas oo aan qorshaha hore ugu jirin sidoo kale waqtiga hoteelkan Karoon la xidhi jiray amaba hoteelada ku yaala magaalada Hargaysa ayaa sida ay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland sheegtay waxa uu ku eekaa 11:50 balse habeennimadii xalay toola ahayd waxa showga Cawaale Aadan laga soo dareeray 3 habeennimo taasi oo loo jabiyay amaradii wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale fanaanka caaqil yare oo isaguna magaalada Hargaysa si ballaaran loogu soo dhaweeyay shoodayo caashaqaagiiba xanuun weynigu abuurey anigu xalayse xawaaye adigu ma xasuusanaysaa caaqil yare de horta warkiisu Hargaysa hore u yaale nin ma hadda isagu dhadhamay iyo dhuuni u soo doontay waa nin jacayl iyo galgacayl u yimi meesha dadka de dhuuniga iyo dhadhamada u soo doontay ma aha waxa weeye ilaa Mareykan baad ninkan laga soo sheegay warkiisa wagadaadu aragto geegeedu waa nabad bulshadeed gob weeyaan Soomaaliland waxa si weyn indhaha loogu hayaa bal sida uu showgiisu uga qabsoomi doono magaalada Hargaysa sidoo kale dadka isticmaala baraha bulshada ayaa waxa ay siyaabo kala duwan uga faaloodeen showgani Cawaale Aadan ee ka qabsoomay hotel Karoon ee magaalada Hargaysa Jabkii Maxamed Xuseen wararka telefishinka Real Hargaysa